kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka shadahan oo kala aad uga barateen. Qodobada aan idinkugu hayana waxaa ka mid ah madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo ogolaaday inuu awoodda doorashooyinka iyo fulintoodaba ku wareejiyo ra'iisul wasaarihiisa Maxamed Xuseen Roble. xubnaha beesha caalamka oo dalbaday in shirka ay isugu imaanayaan madaxda dawladda iyo kuwa dawlad goboleedyada lagu qabto magaalada Baydhabo maadaama Jubbaland iyo Puntland ay diideen imaanshaha magaalada Muqdisho. qodobadaas iyo kuwa kale intaas ka faahfaahsan ayaan daawadeeladin hayaa. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe ha iloobin gambalelkana taaba si aad u noqotid daawadaha ugu horeeya helo wararka iyo warbixinada aan halkan soo gelino. aynu ku bilowno saaxiibayaal. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa ogolaaday inuu si rasmi ah awoodda doorashooyinka iyo fulintoodaba ku wareejiyo ra'iisul wasaarihiisa Maxamed Xuseen Roble. qodobka wareejinta awoodda doorashooyinka iyo shaqadooda ayaa wuxuu ka mid ahaa qodobadii ay isku afgarteen ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo midowga musharaxiinta doorashooyinka Soomaaliya ee 2021 xilli ay heshiis ku galeen hoteelka Dikaale ee magaalada Muqdisho. qodobkani ku aadan in madaxweyne Farmaajo awoodda doorashooyinka iyo fulintoodaba uu ku wareejiyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaan ka mid ahayn 6 qodob oo la soo bandhigay gabagabadii kulankii ay hoteelka Dikaale ee magaalada Muqdisho ku qaateen midowga musharaxiinta iyo ra'iisul wasaaraha. waxaana qodobkaasi oo ka mid ahaa kuwa qarsoodi ah oo aan loo soo bandhigin warbaahinta iyo dadweynaha. waxaa khamiistii aynu soo dhaafnay heshiis 6 qodob ka koobnaa hoteelka Dikaale ee ku dhex yaala garoonka Aadan Cadde ku kala seexday midowga musharaxiinta iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo sidoo kale booqday hoteelka Jazeera oo lagu tilmaamo qalcadda musharaxiinta mucaaradka ee ka soo horjeedo madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. waxaana tan iyo wixii ka dambeeyay heshiiskaasi la isweydiinayay waxa keenay isfahamkani degdega ah isla markaana fududeeyay in heshiis ay gaaraan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo midowga musharaxiinta mucaaradka sida ugu dhaqsiyaha badan. laakiin qodobka ugu weyn ee lagu qanciyay midowga musharaxiinta oo hore u sheegay inuu dhamaaday muddaxileedka dastuuriga ah ee madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo isla markaana loo baahan yahay in xukuumadda lagu wareejiyo awoodda iyo fulinta doorashooyinka ayaa ahaa qodobkaasi midka ugu weyn inkasta oo la isku afgartay inaan loo soo bandhigin warbaahinta iyo dadweynaha. marka la weydiiyay xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka marka laga reebo war-saxaafadeedkii soo baxay qodobada kale ee shirkaasi lagu falanqeeyay waxay ahaayeen kuwo hoos la isugu dhigay oo dhinacyadu ay ku qanceen. waxaana ay sheegayaan in la sugayo warqad ka soo baxday xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya taasi oo awoodda doorashooyinka iyo fulintoodaba loogu wareejinayo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble isla markaana isaga uu sii wadan doono arrimihiisa ku aadan ololaha doorashooyinka 2021 maadaama uu yahay musharax doonayo inuu mar kale u tartamo kursiga ugu sareeya dalka madaxweyne Farmaajo. xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka ee daaha ka qaaday arrinkani waxa ay xuseen in uu adkaan lahaa isfaham dhexmara ra'iisul wasaaraha iyo xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka haddii aan qodobkan ka imaan lahayn dhanka dawladda oo ah in ra'iisul wasaaraha lagu wareejinayo arrimaha doorashooyinka isla markaana madaxweyne Farmaajo uu diidi lahaa in fulinta doorashooyinka uu ku wareejiyo xukuumadda ra'iisul wasaare Roble. ujeedada qodobkani oo muhiimad weyn u leh arrimaha doorashooyinka iyo muranka xoogan ee ka dhex taagan musharaxiinta iyo dawladda ma ahan muhiimadiisu in madaxweynaha uu meesha ka bixi doono laakiinse awoodda iyo fulinta doorashooyinka ayaa lagu wareejinayaa xukuumadda iyada oo uusan soo faragelin doonin madaxweynaha isla markaana arrimaha la xiriira khilaafka doorashooyinka iyo qabsoomidoodaba waxaa dusha saartay ra'iisul wasaaraha waddanka Maxamed Xuseen Roble. qodobkani waxaa horey u dalbaday madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo sidoo kale Jubbaland iyaga oo dhowr jeerna ay ku celceliyeen xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka oo ku andacoonayay in muddaxileedka dastuuriga ah ee madaxweynaha uu dhamaaday 8 bishan Febraayo isla markaana wixii intaasi ka dambeeyo loo baahnaa in guddi
aan madaxweynuhu mas-uul ka ahayn ay la wareegaan arrimaha doorashooyinka. si kastaba ha noqotee waxaa weli loo dhegtaagayaa sida loo fulin doono heshiisyada la gaaray haddii ay noqon lahaayeen kuwa loo soo bandhigay dadweynaha iyo kuwa ka qarsoon ee dhex maray midowda musharaxiinta iyo sidoo kale mucaaradka midowda musharaxiinta iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya. wasiirka koobaad ee dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulan la qaatay wakiilada beesha caalamka ee taageerada siiya dowladda Soomaaliya waxaana ay ka wada hadleen xalinta khilaafaadka arrimaha doorashooyinka ee ka dhaxeeya dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada. dhinacyada ayaa isku soo hadal qaaday sii wadida wadaxaajoodyada dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada gaar ahaan hirgelinta qodobadii 6 ahaa ee ku xusnaa 17kii Sebtembar oo ay ku wada heshiiyeen dowladda federaalka iyo kuwa xubnaha ka ah ee lagu gaaray magaalada Muqdisho iyo tala soo jeedintii gudiyadii farsamo ee ku shiray magaalada Baydhabo. war-saxaafadeed ka soo baxay ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble ayaa lagu sheegay in shirka sidoo kaleeto lagu bogaadiyay isfahamkii ka soo baxay shirkii ra'iisul wasaare Rooble iyo midowga musharaxiinta mucaaradka 25kii bishan aynu ku guda jirno kaasi oo ka dhacay hoteelka Dikaale ee magaalada Muqdisho. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa habka fogaan aragga ah shir kula yeeshay wakiilada beesha caalamka kaasi oo looga hadlayay sii wadida wadaxaajoodyada dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waddanka ee la xiriiray hirgelinta heshiiskii 17kii Sebtembar iyo qodobadii gudiyada farsamo ee ku shiray magaalada Baydhabo. sidaas ayaa lagu yiri warqadda ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka. xubnaha beesha caalamka ayaa intii uu socday kulankan ay la qaateen ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble waxa ay soo jeediyeen in shirka ay isugu imaanayaan madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada laga bedelo magaalada Muqdisho isla markaana loo wareejiyo magaalada Baydhabo ee koonfur galbeed ee Soomaaliya maadaama Puntland iyo Jubbaland ay shuruud ka dhigeen inaysan isku aamini karin amniga magaalada Muqdisho. xubnaha beesha caalamka waxa ay u sheegeen xukuumadda ra'iisul wasaare Rooble oo xilligani hoggaanka u haysa arrimaha doorashooyinka ee dalka iyo xalinta khilaafaad ka taagan in shirkaasi lagu qabto magaalada Baydhabo isla markaana halkaasi ay isugu tagaan madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada si loo sii ambaqaado fulinta heshiiskii 17kii Sebtembar lagu gaaray magaalada Muqdisho. xubnaha beesha caalamka ee saameynta ku leh siyaasadda Soomaaliya ayaa muddooyinkii la soo dhaafay waxa ay xoojinayeen dadaaladooda ku aadan dhamaynta muranka iyo ismariwaaga ka taagan doorashooyinka dalka ee 2021 iyagoo si gaar ah diiradda u saarayo inay xalliyaan cabashooyinka ay qabaan maamulada Puntland iyo sidoo kale Jubbaland kuwaasi oo xifaaltan adag kula jira dowladda uu horkacayo madaxweyne Farmaajo. intaasi ayaan daawadayaal ku soo afmeerayaa barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka la socoteen. fadlan daawaday haddii aad nagu cusub tahay subscribe hanaga iloobin gambaleelkana taaba si aad u noqotid daawadaha ugu hore ee helo wararka iyo warbixinadan halkan soo gelino.
دولتنا جوج